fadlan walaalkeen Soomaaliyeed haddii aad nagu cusub tahay subscribe taawo furo gambaleelka yar si ay kugu soo dhacaan muuqaalada dambe haddii aad xiiseynayso arrimaha jaceylka. waxa ayaan rabaa inaan kuu sheego waan ku jeclahay sida xidiguhu u jecel yihiin dayaxa hooyadana u jeceshahay ubadkeeda shimbirahana ay u jecel yihiin inay duulaan waad ogtahay inaanan dhageysanin qisooyinka jaceylka waayo qiso walbo jecel waxaa ka qaalisan qisadeena waxaan jeclahay laba waqti baynaan dhinacaaga joogo waqtigaad murugaysan tahay si aan farxad kuu siiyo waqtigaad faraxsan tahay si aan murugta kaaga ilaaliyo waxa isku dareen noqdo qalbiyadeena taasoo ay jirin cid kala dheereen karta ma baahni sawir aad leedahay inaan ku dhajiyo darbiyada qolkayga waayo waxaad ku nooshahay aniga qalbigayga way adag tahay inaad hesho qof si dhab ah kuu jeclaanayo ama ka dheereenayo aniga jaceylkaan kuu qabo waxaan aad ugu faraxsanahay inaad adiga tahay jaceylkayga waayo waxaan ogahay inuusan nusqaamaynin jaceylkaad adiga ii qabto jaceylka lama cabiri karo sida shay walbaad soo iibsanaysid loo cabiro keliya waa dareen ma jiro dunidan wax iigu qaalisan aan ka ahayn jaceylkaaga xataa hadday ku guuldareystaan qalbiyada jaceylka dayaxna uu diid inuu ifiyo dunidan aniga ayaan ogolaanaynin inaad ka dheeraato agteyda markasta aniga ayaa taagan garabkaada si aad u ahaato dunidan qofka ugu farxadda badan intaanada nolosheeda ku soo biirin ka hor waxaan qoray buugaag aad u badan balse waa buug ka qiimo badan buugan ku qoray adiga jaceylkaaga haddaan ku dhaho maalin walba waan ku jeclahay aana kuu soo diro fariimo aad u badan maahan mid adiga kugu filan waayo jaceylkaan kuu qabo maaha mid afka laga cadeyn karo waxaan kuu hibeeyey nafsadeyda waxaan xabsi kaaga dhigay qalbigayga si aadan weligaada ugu bixin